xaflad weyn oo ay soo abaabuleen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Masar ayaa habeenkii xalayta ah lagu qabtay magaalada Qaahire ee xarunta waddanka Masar. Xafladan waxa ay ka dhacday hool weyn oo loogu talagalay xafladaha iyadoo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo ka koobnaa qaybaha bulshada sida aqoon-yahanada, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, saraakiisha, ganacsatada, abwaano iyo fanaaniin Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha dibadaha ka yimaada kuwaas oo ka kala yimid waqooyiga Ameerika iyo wadamada midowga Yurub. Xafladan oo ujeedada ugu weyn ay ahayd in dadka ay muujiyaan sidii ay ugu faraxsan yihiin ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya, qaas ahaan caasimada dadka walaalaysa ee Muqdisho. xafladan ayaa sidoo kale lagu taageerayay shirka dib u heshiisiinta Jamhuuriyadda Jabuuti ku dhaxmaray dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya isbahaysiga dib u xoreynta dalka Soomaaliya ee garabka Jabuuti, taas oo soo dadajisay in ciidamada dalka Itoobiya isaga hololaan dalka Soomaaliya. xafladan ayaa habeenkii xalayta ah dadka qaarkiis ay soo qaateen sawirada musharaxa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. xafladan ayaa waxaa xiriirinayay Xuseen Saxnuuni oo sheegay ujeedada xafladda loo qabtay. gudoomiyaha hay'adda nabadda iyo horumarinta bulshada Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sharaxay siyaabaha ay ciidamada Itoobiya dalka ugu baxeen. waxa uu yiri waati uu furmay shirkii Jabuuti oo la isugu yimiday oo aan ogsoonaa Ameerika soo baxay annagoon maaragtay marnaba aanan xaqiraynin oonan ka gaabsanaynin xabadii Itoobiya lagu riday oo muqaawamada ay ku rideen ay naftooda iyo maalkooda u hureen ayaa waxay keentay xanuunka Itoobiya wada hadalka inay aydo. haddii aan xabad lagu ridi lahayn xataa lama dheen kaalay wada la shirayna lama dhehen, laakiin waxaa la ogaaday in laga marmaan yihiin. shalana waxaa la lahaa argaxiso waa lama shirayno, maantana waxaa la yidhi kaalaya diyaaraan idinaa idin la shirno. okay, iyagu laftirkooda fursaddii ma dayicino way ka faa'iidaysteen, way aqbaleen inay la shiraan, wayna la shireen. wixii ka soo baxna waxay noqotay Itoobiya iyadoo maaragtay inay ka hulaasho dalka Soomaaliya iyadoo dhahaysa qodobka heshiiska Jabuuti anigoo tixgelinayo ayaan dalka ka baxaya inay tiraahdo ayay dhalisay. waxaa meesha ka hadlay gaashaanle sare Cabdi Xaaji Baraale oo sheegay in 18 sano ee la soo dhaafay asiga oo ku sugnaa caasimadda Muqdisho uuna arkay waxyaabo badan ay dadka qaarkiis ay la gambadaan markii ay arkaan oo qaar xagga fakar qabaan oo qaar xagga fakar qabaan oo qaar xagga fakar qabaan wax meesha lagu soo dhiso oo intaas ay ka kala maqan yihiin. aniga ma ilaahay in natiijo gaarayso waxaan leeyahay dib u heshiisiinta salkeeda hala balaarsho, hala adkeeyo, hala dheereeyo, waqtiga ha loo dheereeyo, degdeg waxba ma lagu gaarayo. Luul Axmed Cumar oo ka socotay jaaliyadda Toronto ayaa sheegtay in ay halkaan u timid caawa in ay bulshada u sheegto amba siyaasiyiinta Soomaaliyeed in kursiga Soomaaliya uu yahay mid qura oo aan dad badan deeqin. waxa ayna sheegtay inay u timid in ay ka mid tahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhibaataysan. waxa ayna dareenkeeda ku cabirtay email oo dad taagan yahay waxaana keenay waa nabad raadis. weligay ma soo istaagin microphone email oo dad taagan yahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku rafaadsan qurbaha qurba joog ku dhibaatooday. kuwa wadanka joogana igama fiicno, dhibaato badan ay haystaan oo ilmahoodii lagu hordilaayo oo walaalahoodii waalidkoodii nimankoodii lagu hordilaayo. marka walaalayaalow nabadda hanaga hor istaagina, dhuun raac ha naqanina, kuraasta aad u kala ordaysiina ma wada deeqda dadka kursi, hal qof u daaya, jaanisna siiya. Keef Cabdullaahi Ciise oo ka socotay jaaliyadda waddanka Ingiriiska ayaa ka dhawaajisay dareen dadka dibadaha ka yimaada habeenkii xalayta ah ay la ilmeeyeen. waxayna sheegtay inaysan hayn dal ay caruurteeda kula laabato kadib markii ay muddo ku sugneed waddanka Ingiriiska ayna u soo qaxday waddanka Masar ayna u baahnaa lahayd in ay ku laabato dalkii ay u dhalatay ee Soomaaliya. waxayna dareenkeeda ku cabirtay inayso in caruurteeda u baahan tahay inay ku koraan ama ay ku barbaaraan dhulka hooyo si ay u ogaadaan diintooda Islaamka ah ama ay u ogaadaan dhaqankoodii. ay nin walba ku hadliyo 12 lahjadood. waa garanaysaa markaan isugu tagno xafladaha ciidaha dadka ay qurbaha ka yimid ee caruurta sitaayay inay ku hadlayaan luqado kala duwan. dareen sacab iyo qeyra ka muuqato waxaa lagu soo dhaweeyay Sheekh Xasan Shiin oo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka ee magaalada Qaahira, asagoo ugu horeyn hambalyo u diray kooxaha muqaawamada iyo shirka dib u heshiisiinta Jamhuuriyadda Jabuuti ku dhaxmaray dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya
isbahaysiga dib u xureynta dalka Soomaaliya Xasan Shiino waxa uu sheegay in wixii xamar ka dhacay 18 sano ee la soo dhaafay aysan ahayn wax la qari karo wuxuuna sheegay in xamar uu ka dhacay dulmi leesna weydiinay waxa keenay ciidamada Itoobiya in ay soo galaan gudaha dalka Soomaaliya waxaan ka hadlaynaa mataqaanaa oo ugu horeysa waxa weeyaan ka bixitaanka ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya waxa weeyaan waxaan hambalyo mataqaanaa u direynaa dadkii mataqaanaa muqaawamada ku dadaalay ummadda Soomaaliyeed inay mataqaanaa xal u keenaan sida ogsoontihiin yani wadanka Soomaaliya dhibaato fara badan ayuu soo maray aniga 18 sano waxaan joogay xamar waxa weeyaan dib aan la koobi karin ayaa ka dhacay xamar nin walbana waa ogsoon yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dulmiga wuu xarimay haddii mataqaanaa koox intay mataqaanaa dad dulmisay gurihii la xoogay dadku yani nooc qabiil walba ha ahaado yani dulmi fara badan bay galeen khaasatan xamar dad fara badan baa ku noolaa way ka hajireen maxaa keenay Itoobiya sababta keentay Itoobiya maxay tahay laaziman Itoobiya waxa keentay dulmiga ay sameeyeen reer Muqdisho oo dagaalka faraha badan u galay yani sida ogsoontii nuur cadde arintii oo aad u qasan oo dadkii mataqaana bagaara si xun loogu galayo la dilaayo la dulminayo ayuu joojiyay dad badan oo xirxirnaayo soo furfuray Cabdiraxmaan Guray oo ku hadlay magaca guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Masar ayaa rajo wanaag ka muujiyay in ay ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya waa wax aad loogu farxo qof walba oo ina kamida qof walba oo Soomaaliya waxa uu ku farxayaa culayska gudaha laga dareemayay run ahaantii waxa weeye qof aan kula diinahayn ku diirnahayn cudur iyo wax walbana xambaarsan inuu geyigaaga ku noolaadaa waa urku taalo in culayskaasi uu ka dulkacaano waxa weeye waa wax lagu wada farxo qof walbana caawa farxad ayaa wajiyadiisa aan ka akhrisanayna ugu dambeyntii baaq ka kooban 7 qodob oo ay soo saartay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Masar kuna aadan ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee wadanka Soomaaliya ayaa saxaafadda u akhriyay Mahad Maxamed Salaad oo ku hadlay guud ahaan magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Masar jaaliyaddu waxay soo dhaweynaysaa isla markaana taageeraysaa ka bixista ciidamada Itoobiya ay ka bixeen caasimadda Soomaaliya iyo inta badan gobolada dalka Soomaaliya waxay si gooni ah jaaliyaddu u soo dhaweynaysaa dib u heshiisiinta ka socota dalka Djibouti gaar ahaan dowlad wadaagga lagu wado in lagu soo dhiso dalkaas aan walaalahanahay afar jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar waxay soo dhaweynaysaa baaqyada ka soo yeeraya culimada odayaasha dhaqanka ganacsatada aqoon-yahanada iyo haweenka Soomaaliyeed Xaaji Mire Axmed Mataan oo ka tirsan guddiga sare ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Masar ayaa asiga rajo wanaag ka muujiyay shirka dib u heshiisiinta Jamhuuriyadda Djibouti ugu socdo dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo isbahaysiga dib u xureynta dalka Soomaaliya waxa uu yiri tan aan taageerayno ka bixitaanka ciidamada Itoobiya dalka ay ka baxeen iyo inaan taageerno ayadana shirka nabadda ee Djibouti waxa intaas dheer aan rabaa inaan inta laga soo bilaabo 90 ilaa iyo hadda waxa socday shirar lagu qabanayay wadanka gudihiisa ama dibadiisa isla markaana wax noo hagaagayo ma jirin waxaan markaa rabaa inaan weydiiyo su'aal ah qofka aanan doonayn nabad aanan doonaynin ilaaha mahadleh in wadankii kala dambayn iyo nidaam lagu soo dabaalo ee aanan doonaynin in nabad lagu wada hadlo ee intaana kamid ah bal gacanta xafladan qiimaha iyo aqaayaha leh oo habeenkii xalayta ah oo ay soo abaabuleen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Masar isla markaana ay ka soo qayb galeen haween aad u fara badan rag iyo duqow iyo indhargarad ka kala yimid qorbaha iyo qaar ku sugan gudaha wadanka Masar ayaa waxa ay ku dhamaatay jawigii lagu tala galay iyadoo dadka Soomaaliyeed habeenkii xalayta ah ay isxasuusiyeen dhibaatadii ay reebeen ciidamadii Itoobiya ee muddadii 2 sano ah ay ku sugnaa
caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ciidamada Itoobiyana ay bilaabeen inay gabi ahaanba ay ka baxaan guud ahaan dalka Soomaaliya iyadoo taasina ay dhalisay sida ay sheegeen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Masar kana sugan habeenkii xalaytaan halka ka hadlay inay taasi dhalisay shirkii dib u heshiisiinta ee dhawaanta ka dhacay waddanka Jamhuuriyadda Djibouti kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen isbahaysiga dib u xoreynta dalka Soomaaliya garabka Djibouti iyo dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya kaas oo hogaaminayay ra'iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cadde isla markaana dhaliyay in dad Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan guryahoodii ay ka qaxeen muddo haatan laga joogo 2 sanadood mahad carab oo cali telefishinka Universal Al Qaahira